anigu waxaan ku dhashay dhulkan ingiriisku Ethiopia siiyay aan ku dhashay aabahay wuxuu ku duugan yahay wuxuu ku dhintay mustaxiil dugsigii baa la geeyay markaan anoo 6 jir ah markaas fasalka koowaad markaan bilownay waxaan nala ku bilaabay af ingiriisi bilow ilaa dhamaad waxbarashadeedii oo dhan waxay ahayd waxbarasho dawladda Soomaaliyeed ay bixisay waxaan haystaa gabayga horeeyo oo xafido wuxuu ahaa kii koofil هذا كوفيل وجيتو دنيا جوجين جهنم لقيه وهذا آخره وجهته واحد مركز حفظ ما شاء الله هذا كاس الحفظ مركز تضباطي أفريقيا واقلين جوسي ناشونال سيرفيس كمسويس ماي هاي مركي للسود دجيي امتحاناتكي بي وحير هذا هداد ربطو إناد عيدا ماذا قشو سركال نقطو حالنا اسك حاضر وحان نقوني قولا لكوستي heshiis oo ah in ciidamada Soomaaliya la dhiso oo aad loo taag shanbari gudaheeda odasan joog toos bay noo geeyeen jaamacad bay na geeyeen waxa lagu qoray aniga waxa hagida gantaala dadka darajada hooseena waxay ku qeyn farsamo iyo waxaas ku qoray iyo ciidamada kale ciidamada lugta waxyaalahaas oo dhan qalabka Soomaaliya ma haysato markaas ma loo soo wadaayo Soomaaliya way haysato kadib marsar baan ku dhamaysan doonaa maxay Soomaaliya ruushka waa islaayeen dagaalka Ethiopia isku dhaceen 77 kala gaaray ciidamadii ruushka oo dhan baa la eriyay annakana waa nala soo eriyay The Soviet Union began shipping in weapons and 15,000 troops to fight in Ethiopia. waxaan xasuustaa kaliya nin baa naga haray kaliya oo awal baan ka shakisanay inuu Ethiopia ka yimid oo dadkan Soomaaliga aan ku hadlin ahayn laakiin reer Ethiopia ah بانجا مارك أول بتكشك السنة حتى هذا جاجوس إنه يحصل عمله بقى أنا واقع صدر كله لكن كابا كسر هذا an episode كمد an episode ذي Malbridge and ما أنت وحنا كان لجوجا بروفيسور يوسف أحمد نور baadi oo laga yaabo idinkoo kuwa badan oo ka mid inay hore u yaqaanaan waxaan joognaa magaalada la yiraahdo Bloomington Indiana oo ay ku taalo jaamacadda Indiana University Professor Yusuf jaamacadan baan aniga isku baranay 9 sano ka hor muddo hadda laga joogo mar aan meeshan undergrad ka dhiganayay marka ayada ilaa haddana waan xiriirkanaga joogto ahaa mar kasta oon professorka sheekaysano oon dhageysto khibradiisa noloshiisa dadkii hore iyo dawladii systemkii dhisnaa iyo hawshiisa isku bedeshay iyo dadkii qurbaha soo galay iyo harjadka la soo maray iyo markasta waxaan dhahaa warniyow camera iyo telephone iyo maxaa la dhigi microphone inuu maanta idin horiya la fiican lahayd soo sheekadaan ay dad badan idinla dhageystaan nasiib wanaag maanta ayaan chance u helay inaan kaamirooyin iyo microphone aan soo qaadano aan professorka ugu imaano jaamacadan Indiana University marka anoon in kaga sii hordhicin wax badan Professor Yusuf baan idinku wareejinayaa Professor Yusuf waxaan rabaa inaad wax yar nooga taataabatid bal horta waa kuma Yusuf iyo sidii maxaa la dhahayay aad horta magaaladan Indiana la yiraahdo Bloomington la yiraahdo Indiana aad ku dooratay in hoygaaga noqoto Bismillahir Rahmanir Rahim horta Maxamedow aad baad u mahadsan tahay arintaana dhowr jeer baan kugu yeeray Axmed inta aan isbaranay oon xasuusto waad ka duwan tahay waxaad uga duwan tahay weligaaba waa iga warhaysay markii dhowr biloodba ama dhowr usbuucba mar baad ila soo hadashaa oo ila soo xiriirtaa aad iyo aad baan arintaas horta ugu faraxsanahay sababtana waxaa waaye aniga ku liita aad baan ugu liitaa xiriirka dadka waxaan ahay dadka iska guri joogga ah maaragtay buugaagtaydaas iyo waan isaga dhex jiraa marka inaad isoo raadisay markaana waa ku faraxsanahay horta jaamacadda ma jooga hadda waa shaqada waa ka fariistay howlgab baan ahay alxamdulilah oo ku faraxsanahay intaan soo kifaaxay laakiin Bloomington inaan imaado waa qiso aad iyo aad u dheer waana wax ilaahay saanteena ee baaqaada wax ilaahay uu qadaray waay laakiin waa sidaan wadanka uga imid
intaan u badnaa magaaladan baan u badnaa waddankana waxaan ka soo tegay 86 marka waa magaalo waxay noqotay hawigaygii ah meesha aan rajaynaya inaan laba mid bay noqon doontaa inaan meeshaan qabrigayga uu ka qodan yahay iyo inaan waddanka u noqdo laakiin haddii ay noqoto inaan insha allah geeriyoodo waxaan jeclahay ama inta Bloomington ama maaragtay maxaa la dhihi jiray Bondere kulley Bondere hadda la iskuma duugeen Bondere aan ku koray maasha allah waddankaas aad iyo aad mar walba aan uga naxo qalbi jab igu rida siduu u burburay siduu u baaba'ay iyo maaragtay iyo waxa suurtagal ahaa iyo waxa dhici karay iyo hadda siday tahay markaad isbarbar dhigto yani wax isu dhow ma ah waa wax laga naxo waa wax maaragtay saas daraadeed anigu waxaan ahay dadka aad isaga ilaaliya inaan la socdo waddanka dhibaatadiisa sababtoo ah qalbi jab bay igu ridaa qalbi jab bay igu ridaa wax walba markaan wax maqlaba waa sii qalbi jabisaa anoo mar walba xasuusinaya sidaa tiri naxariista ilaahiga lagama quus walaa tayaasu min rawxillaah innahu laa yaasu min rawxillaah illa alqawmu alkaafiruun yani inaan naxariista laga quusan oo maaragtay laakiin raja aan xidid lahayn raja aan maaragtay ficil lahayn raja aan maaragtay daal lahayn waa rajo beenaad marka waxay ku imaan kartaa quusasho la'aantaas inay wax hagaagaan waxay ku imaan kartaa hawl badan dadka xunna xumaan bay ka shaqaynayaan dadka wanaagsanna hadday ka gaabiyaan oo dadka xumida ka shaqaynaya in iska qaban oo iyaku ayna wax xumida ayna wanaag ku bedelin waxba ma hagaagi doonaan su'aal baan ku diinayaa waxaan rabaa horta nin diinta luuqadaha cilmiga businesska managementiga waxa aan dhowr saacood ka wada hadli karnaa marka maanta kurtigu ma wada dabooli karno dhowr meelood baan taaban doonaa laakiin su'aal yar baan rabaa erey hadda dhaxday inaan kaa weydiiyo sababtoo su'aasha dad kale aan hore uga soo maqlay oo ereyga waxaad isticmaashay hawlgab anaga sidaan badanaa dhahno waa gaari duqoobay oo taayirada laga furtay oo meel jangiya lagu tuuray ama maxaa la dhahaye wax aan qof aan wax kale ku filnayn laga arkaa anigana waxaan u arkaa inaad nin hadee wax soo bartay tahay laakiin xilliga hadda actually aad noo soo joogsan lahayd oo dalka iyo dadka wax ku celin lahayd oo cilmigaa ka faa'iidaysan lahayd inay la soo gaaray marka hawlgabnatiida hawl kala duwan baa ku bilaabanaysa bal erey kale ma haysaa erey kale ma hayo hawlgab horta waa erey xun waa kugu raacsanahay waxaa kaloo xun oo mar walbaba dadkaan xasuusiyaa kulley waxaan u malaynaa hadda in la bedelay waxaa la yidhaahda qalinjabin qalinjabiyey erey ka xun oo Soomaalidu aliftu waa yaryahay sababtoo ah war qofka markuu jaamacadda ka baxo ama dugsiga sare ka baxo ama meeshay doonto ha ahaatee hadduu ka baxo markaasay waxbarashadu runta bilaabanaysaa maaha inaad qalinka tuurtood maaha qalinka inaad tuurtood meesha ay kugu dambeeyeen nasiib xumana waa waxyaalaha aan kala hadlo qof walboon la hadlo dhalinyaro ah adigana aad ku jirto markaan qof saasoo kale dhalinyarada jaamacad soo dhameeyaan la hadlo waxaan idhaahdaa hadday waxbarashadaadii runta ahayd bilowday macalinka iridda unbuu kuu furi karaa adigaa lagaa rabaa inaad iriddaa la furay oo cilmigaa inaad inta gasho aad maaragtay baarto oo wixii aad baratay wax ku kordhiso waxa aad ku kordhinayso waxaa laga yaabaa inaadan cid walba aadan la wadaagin dadka wax la wadaagaya dadka kale ama inta qora waa yar yihiin laakiin adiga naftaada inaad wax kororsato oo aad dadaasho oo aad dadaalka sii wado waa laga maarmaan saas daraadeed sidoo kale howlgab waa ereygan iska isticmaalay waxaan jeclahay inaan Soomaalida erey Soomaali aan isticmaalo oo isticmaalin erey ajnabi ah sax laakiin howlgabka sidaan u arkaa aniga howlgabku waa laba nooc noocna waxa waaye qof howl kalaba niyad kalaba awalba aan lahayn sax ee hawshiisu ay ahayd kaliya waxa markaa uu hayo qofkaana mar hadduu shaqada ka tago shaqada ka fariisto erey ka fiican waxa shaqadii uu qof ka fariistay marka laakiin howlgab baa la dhihi jiraa malaynayaa markii ereyada la sameeyey ereyadii la sameeyey oo cusbaa oo markii af Soomaaliga la qoray sax waxaan malaynayaa inuu ku jiray howlgabku inuu ku jiray laakiin ma shaqada ka tago inuu howlgab laakiin aan dhahnaba shaqada qofku markuu ka tago
waa laba nooc noocna waxaa waaye waa qof awalba wax kalaba adduunyada kuma hayn shaqadaa unbuu yaqaanay subax walba ayaduu ka lahayn noloshiisa micnaheedaba waxay ku ekaydba shaqadaas markuu shaqadaa ka tago qofkii wuu shiiqayaa qofkii waxaad arkaysaa qiimo beelay bini aadankuna waxaa waaye qiimo inay noloshaan micno leedahay buu bini aadan ku yahay bog aan dhowrkii sanaba aan akhriyo oo ingiriisi ah waxaa la yidhaahdaa man's search for meaning waxaa qoray nin holocaust survivor ah holocaustii yuhuudda lagu laayay dadkii ka badbaaday buu ku jiraa markaas wuxuu ka sheekeynaya khibraddiisii iyo raggii la joogay meesha kaampada lagu hayay wuxuu arkay eebba cumrigii uu eebbe ku siiyey ka sokow dadka aan lahayn micno ay micnihii nolosha beelay oo noloshii micno ay dambe ayna ulahayn dadkaasu way dhimanayaan ma sii waarayaan markuu isdhaho meeshaana kugu dambayso way xaqiiqoobaysaa way xaqiiqoobaysaa wuxuu isleeyahay maxaaba kuu harayba maxaa kuu haray maxaaba kuu haray marka taa dadka kalena waxaa waaye barnaamij kale oo awal ay dib u dhigi jireen oo ay dhihi jireen waxaan u firaaqoobi doonaa markaan maarag shaqada ka fariisto barnaamijkaasay marka anigu insha allah ma noqon doono dadka maaragtay howlgab ama inta shaqada markay ka fariisteen ay noloshoodina meesha ku dhammaatay af ingiriisiga waxay yidhaahdeen dadka qaarna they live to work qaarna they work to live marka saasay kala duwan yihiin qofkana waxaa la rabaa noloshiisa inay shaqada ka weyn tahay oo noloshan ilaahay ku siiyey aad maaragtay wax badan ku qaban karto ka sareeya kana fiican shaqada aad hayso marka taasaan anigu rajeynaya inuu ku dadaalaya haddii la yiraahdo insha allah ku rajeynayna insha allah inuu ilaahay ku guuleeyo waxaan rabaa wax yar inaan dib ugu noqdo noloshaada hore miyi baad ku dhalatay ilaa iyo waxaan malaynayaa da'da 5 ku soo gaartay dadka iyo dalka oo dawladda baad magaalada soo gashay systemyo loogu talagalay dadka ama aqoonta ah ama garab qabashad u baahan baad saan waxyaabo badan aad iga sheekaysay ku soo dhex kortay ilaa iyo askarinimadaadii iyo noloshaadii waxbarashada sare aad u soo aado dibadaha arrintaas arbul wax yar inaad nooga tataabatid meeshaad ku dhalatay iyo meeshaad ku soo kortay iyo iskuulkii aad wax ka soo baratay inaad noo yara dulmartid anigu waxaan ku dhashay dhulkan ingiriisku Ethiopia siiyey aan ku dhashay hooyaday waxay tiri meel la yiraahdo Meer Qurac xuduudka aan ka fogeyn laakiin gudaha ah aabahay wuxuu ku duugan yahay wuxuu ku dhintay mustaxiil wuxuu dhintay waqti abaar xun oo maaragtay dadkiina macluul ka dhigtay aad iyo aad dadku ugu rafaadeen reerka meelahaasay geelooda iyo xoolahooda ku raacdaan wixii webiga Shabeelle ka jira bari galbeedka waxay u gudbaan kaliya markii abaar ay dhacdo abaar xun baa dhacday abaartaas dishay marka meeshii baa lagu duugay anigu markaa 5 jir baan ahay duqeydadayahoo magaalada deganeed xamar deganeed baa noo timid qorshaha wuxuu ahaa labada wiiloo waaweyn hooyaday aabahay waxay ahayn 5 wiil bay iyo aabahay lahaayeen 5 wiil oo isku xigaan ahayn marka anigu waxaan ahaa wiilka dhexaad baan ahaa laba iga weyneed labana waa iga yaray marka qorshaha wuxuu ahaa labada wiil oo waaweyn inay inta la soo qaado waagaas waxaa jiray meel agoonta lagu hayo oo OM la dhihi jiray orphanum skilin talyaaniga aasaasay maxamed rajab bay ku aali jirtay meeshaas qorshaha wuxuu ahaa intay labada wiil oo waaweyn soo kaxayso in ay maaragtay orphanahaas geliso marka anigu markaa 5 jir baan ahay kan iga weynna waxaa waaye waa 7 jir kan ku xigana corodka ay hooyaday ku coratay waa 9 jir marka hooyaday baa marka waxay tiri anigu gabar ma lihi wiilka weyn baa wax walba ila qabta isaga ay kaalmeeya marka wiilka weyn ha iga wadina kuwa kale daa doonto wad saasaan anigu ku soo galay adiga daadiga weyneed saas ku soo galay dadka waxaan idhaahdaa erey ingiriisi waxaa jira تعبير إنجليزي a blessing in disguise. A blessing in disguise وسيد آيات القرآن وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
ayaddu dhahaysa waxaa laga yaabaa wax inaad jeceshahay صح laakiin adiga sharci kugu jirto waxa aad nacab tahayna ay khayr kugu jiraan taasoo kale waaye oo waxaa waaye aabbahay geeridiisa haddiinu aabbahay dhiman wixii ka dambeeya oo dhan maaragtay wixii ka dambeeya oo dhan waxay noqonayaan yani maxaa dhici karay baad isleedahay mogta laakiin haddana wax walbaba maqaadiirta ilaahay bay ku dhacaan waxaa yaab leh xadaarada galbeedka muslimiinta waxay ku cambaarayn jireen inay dad aaminsan alqadaa walqadar aaminsan ay yihiin oo maaragtay waxba ayna qorshaynayn oo maaragtay ay iska dhaadhiciyeen wax walbaba ilaahay baa amarkiisa ilaahay baa samaynaya طبعا si qaldan bay u fahmeen oo markaad u sii fiirsato sida saxda ah umayna fahmin laakiin hadda waxaa soo cadaanaysa runtii waxaa soo cadaanaysa markaad isku darto labada waalidoo ku dhalay iyo duruufta aad ku dhex kortay iyo maaragtay waxyaalaha adiga aadan awood u lahayn oo dhacaya markaad isku darto waxa aad adiga go'aan ku leedahayba aad bay u yaraanaya anoo 5 jir ahaa bay dhintay aabbahay hooyaday inay isguursadaan anigu kuma lahayn go'aan kuma lahayn lagalama tashan aabbahay hooyaday baa isguursaday anay dhaleen lagalama tashan aabbahay waa geeriyooday lagalama tashan eedaday baa timid wayna kaxaysay aniga ninkayga weyn asaga orphanaa la geeyey waxay yidhi nin wuxuu ahaa 7 jir nin wuxuu ahaa nin maaragtay adag anigu waxay yidhaha waa 5 jir warkanuu orfana ma qabanayo bal horta meelahan nalka nala joogo sanad waxaan u malaynayaa sanadka gudihiisa orfana wax iska bedeleen mar sanadka magaalada soo galeysaan waa sanadkii ma xasuustaa waxay u badan tahay inay 65 maxay xasuus fog waxa igu ahaa guriga waxaa waa taag buu ku yaalay waa boondheere sax waxaa noo muuqda baarlamaanka iyo kaniisadii weyneyd iyo baddaa noo muuqda markaad guriga dayrkiisa markaad taagan tahay maaragtay marka waxaan xasuustaa anoo meesha fadhiya oo saas baarlamaanka u fiirinayna oo maaragtay nalal saasoo kale ah marka labada saasaan u fadhinaa waa wax cusub oo hore aan u arag marka waa ama waa 60kii ama waa 61kii 65 oo 64 ka wada miya سلحدني كود مكي ما لحدن كي أما لحدن كوجي واو مكي حرية القاطبة ها ما لها سوى واو أوكي هاي وحام علينا أما وحرية دي باللف استيناي ودماشات كحرية دواي أما وسنة كي كحجي بتكود واي ما قرنا يعني ما حسست مدوها لكن وحا كم وقت إنه ها لحدن كي سيدا يقرن ما عرفت مركي يقرن على الشدة صح لحدن كي إنه ها كم وقت marka waagaasaan anagu imid de wadanka dugsi baa ku yaalay korkeena oo la dhihi jiray boondheere dugsi hoose oo boondheere baa ku yaalay dugsigii baa la geeyey markaan anoo 6 jir ah kadib waxaa ilaahay maqaadiirtiisa sidoo kale ilaahay maqaadiirtiisa waana abaal weyn aan ugu hayo cabdirasaaq xaaji xuseen الله نحرسته عبد الرزاق ورئيس وزاري لباد واي ودنك مركو حرية قاتي كنت عبد الرزاق مركو وحو نو جوغي جري لاقد وحو متلي جري اسوائل بو وحو متلي جري سفير اهان يونايتد نيشنز صح ماري قرومها مدوي بو متلي جري مركو نين وحو اها لا سعودا اف انجليزيغا inuu yahay luqada adduunyada ugu xoog badan oo maaragtay waagaasna waan la taqaanaa inkastoo labada qaybood ay midoobeen koonfurtana dugsiyada dawladda waxaa lagu dhigi jiray af Talyaani dugsiyada waqooyigana waxaa lagu dhigi jiray af Ingiriis marka waa ninka go'aan saaray baarlamaanka marsiiyey in koonfurtana dugsiyada dawladda af Ingiriisi lagu dhigo isagaa go'aankaa lahaa صح markaasaa fasalka koowaad markaan bilownay waxaa nala ku bilaabay kooxdaydii waxaa nala ku bilaabay af Ingiriisi isagaana sabab u ahaa marka waxaan ahaa aniga koonfurta ardadii u horeysay oo af Ingiriisi in la baro loo bilaabo ka hor Talyaani iyo Carabi unbaa dadka Carabigana waa la dhigi jiray af Talyaaniga waa la bari koonfurta waqooyigana wuxuu ahaa af Ingiriisi iyo af Carabi laakiin annaka nala ku bilaabay
كلاسكاي كوباد سكول اوفيشال اوفريستد ها aniga waxaa lagu bilaabay kindergarten waxaa la yiraahdaa ها صح waxay dhihi jireen preparatory dhihi jireen bay igu bilaabay صح bay dhihi jireen nursery basically waa haa saasoo kale waay adiga lagu bilaabay kaana way lahaayeen laakiin sanadkii ku xigay waay ma sanadkii horreeyay sanadkii ku xigay aad baan u xasuustaa waxaan laga yaabaa xasuustaydu inay wax ka qaldan tahay laakiin waxaan xasuustaa maalin macallin baa noo yimid markaasuu sabuuraddu wuxuu ku qoray a b j in af talyaani maalintii ku xigtay waa sidaan ogahay waxaa laga yaabaa inaan waqtiina u dhexeeyay laakiin aniga maalintii ku xigtay ninkanaa yimid af ingiriisi buu ku bilaabay a b c d buu ku bilaabay markaasna ma agoonta baa ku jirtaa mise waa maya agoonta aniga marna ma gelin agoonta maadna gelin adiga waataan kuu sheegayoo aniga waxay rabeen xoogaa inay hayaan gurigu hayaan kadibna marka ay geeyeen laakiin waxba isbedelay ma garana aniga waxa isbedelay laakiin waxay arrintu ku dhamaatay inaan reerka la koro oo ilaa iyo high school kaagi ilaa high school kan ka dhameeyo gurigaasaan joogo high school sanad ka dhameysay marka waxa waaye dugsiga dhexe waxaan dhiganay ilaa fasalka afraad wuxuu ahaa dugsiga hoose oo Boondheere sanad bay waxayna geeyeen dugsi la dhihi jiray Bilaajo oo ku yaalay Shibis marka saddexdii sanba u dambeysana dugsiga dhexe ay dhihi jireen oo ku yaala wasaaradda tacliinta ka soo horjeeday oo dugsiga dhexe la dhihi jiray kaasaan ku dhamaystay kadibna waxaan ahaa qoladii u horeysay oo 15 May lagu furo dugsiga sare dugsiga sare markaasaan uga soo baxay 4 sano oo horeysa ka soo qaadatay marka anigu bilow ilaa dhamaad waxaa waxbarashadeedii oo dhan waxay ahayd waxbarasho dowladda Soomaaliyeed ay bixisay bay ahayd ma xasuus ma u leedahay markii dowladda shacabka ay meesha ka baxday tii kacaanka ay qaadatay adiga marka ayada xageed waxbarashada mareysay maxaa noloshaada iska bedelay maxaad ka xasuustaa waxaan xasuustaa dugsiga dhaxaan ahayn markii inqilaabku dhacay dugsiga waa muxuu ahaa 69kii dugsiga dhaxaan ahayn dugsiga dhaxad fasalka 8aad aan dhamaynaynin fasalka 8aad waxaan 69kii 70kii wuxuu ahaa fasalka 8aad dugsiga sare waxaan bilaabay 70kii 74 waa dhamaynay 70kii marka aad bilaabayso iskuulkan 15 May kacaanka baa dhisay waxaa dhisay kacaanka waqtigiisii baa la dhisay laakiin qorshuhu ka horeeyay oo markaa annagu aan bilaabayno dib baanba u dhacnayo waqtiga ay dugsiyada bilowdaan maanan bilaabin sababtoo ah dhismihii baa ku socday sax marka waxaa EEC da dhistay qoladan EEC da la dhihi jiray European Common Market ama European Community waxa la yiraahdo baa dhistay marka barnaamij hore u socday waaye laakiin waqtigiisii aad bareen 70kii baa la furay 70kii baan maaragtay meesha ka bilaabnay dugsiga sare manhajka iyo luqadda wax lagu baranayay iyo system wax lagu baranayay ma iska bedelay mise sidiisii baa lagu sii wado kacaanka tii shacabka unbu sii wado tii buu sii waday laakiin barnaamijyo kale ay soo geliyeen waxay bilaabeen in dugsiga ardada dugsiga sare waxay bilaabeen in ayagana Talyaani la baro luqa ahaan sababtoo ah wadanka kaliya oo tacliinta sare taakuleynaya wuxuu Talyaaniga marka saas daraadeed baa adiga waa sanadii dambe ma sanadii u horeeyay waxaa malayna labadii sano u dambeysay bay waxay yiraahdeen dugsiga sare waa inay Talyaani la baraa si ayagoo Talyaani xoogaa ka yaqaana ee jaamacadaha u galaan laakiin waxaan ahayn barnaamijkii hore wax saas runtii lagama bedelin waxay 72 markii af Soomaaliga la qoray 70 waxaan maleynayaa 73 74 darsi af Soomaaliha la bilaabay oo waxaan xafidi jirnay gabayada iyo siba waxaan xasuustaa gabayada Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaan xasuustaa anoo maaragtay erayada qaarkood rafaada aniga waxaan ahay nin Boondheere ku soo koray Boondheere af Soomaali laguma yaqaan anoo xoogaa erayada ay dhib igu yihiin nin reeraheena ah oo cagta eeday la dhihi jiray oo maaragtay daraawiishtu ahaa dadkii daraawiishta dagaalkooda ku jiray buu ahaa ninkaasaan marka reerkeenana meesha anaga aan ku dhashay iyo dadka reerkayga iyo hooyadayga af Soomaali waxay ku hadlaan af Soomaali maaragtay fasiixa waxaa aniga Boondheere ku koray Soomaa marka
ninkaas anoo weydiinaya erayada qaarkood baan xasuustaa waxaan xasuustaa gabayga horreeyey oon xafido wuxuu ahaa kii koofil hadaa koofil oo jiitay oo dunida joogayn jahannamo la geeyo haddaad aakhiro u jihato kuwii janna u kacay war bay jirin insha alleeye waagaasaan xifdiyey marka 74 baa qalin jabisay national service ma samayso may hay waxaan markii la soo dejiyey imtixaanaadkii bay waxay ku soo dejiyeen ogeysiis hay waxay yidhahdeen haddaad rabto inaad ciidamada gasho oo sarkaal noqoto xalana iska xaadiri maalintiiba sax xasuustayda August bisha 8aad 20keedii baa la soo dejiyey waa sidaan xasuustayda 1974 by the way xasuusta ma aragtay mar walba waxaan ku xasuusinayaa hadda waxaa laga sameeyey cilmi baaris yaab leh baa xasuusta laga sameeyey xasuusta badankeeda aan leenahay oo sheeganayno waa waxaan alifnay waa lagaaga sheekeeyada ama sheekadii waxbaa lagaaga sheekeynayaa meeshii baad isdhexgeynaysaa awal ku jirin adigana waxaa kaa dhaadhacsan inaad goobjoog ahayd oo meeshii aad joogtay markaad wax akhrido mogta waxyaalahaas aad ogaanaysa marka xasuustayda waxay ahayd bishii 8 baa la soo dejiyey waxay kaloo ku soo dejiyeen arrintaa adiga ninka duqda eedada soo korisay wiilkeeda weyn oo xafiis lahaa magaalada hoose baan u tagay waxaan u sheegay inaan dugsiga sare ka baxay aan dhameeyey waxaana jeclaan lahaa inaan maaragtay ciidamada galo markaasuu isagaa qaaday oo geeyey saasaad military ku qorat meeshaas annaku marka militariga intaan ka naqaano waxaan isleenahay waxaa laydin geyn doonaa Kismaayo jaalisiyaad horta ma jirta markaa ma jirin weli kulliyadda jaalisiyaad ma jirin marka Kismaayo meelahaas waxaasaan isu diyaarinaynaa waxaan noqonnay qolo la kowsatay heshiis uu ruushka iyo Sovietka iyo ruushka ay galeen 74 oo ah in ciidamada Soomaaliya la dhiso oo aad loo heshiis 20 sano baan la kowsanay mana la soconaa annagu war uma hayno sax Shanbari gudaheeda 20kii soo lama soo dejin 25kii odeysaan joognay toos bay noo geeyeen jaamacad bayna geeyeen tababar military iyo ciidan iyo balaayadaas nama marsiin jaamacad oo engineering bayna geeyeen 4 sano markaasaa 6 sano luqadaad baranaysaa semesterka u horeeya waxaan luqad ahayn ma baranaysid meeshaana la geeyey meeshii baa markaa af ruushna lagu bilaabay barnaamijka waxaa waaye in waxaa laygu qoray aniga hagidda gantaalaha ruushka gantaaluuna siiyey may waxba kuma dooransiinaya ayagaa go-aanka gaaraya waxay sameeyeen waxa keliya sameeyeen wasaaradaha intay tageen wasaaradda tacliinta in tageen waxay soo qaateen liiskeena dadka subaxda ay qorteen bay waxay soo qaateen dugsiga ay ka baxeen iyo darajada ay uga baxeen marka qof kasto darajadiisii high schoolka loo tixgelinaya markaasay iyagoo taa tixgelinaya bay dadka darajada sarreeyena waxay ku qoreen engineering dadka darajada hooseena waxay ku qoreen farsamo iyo waxaas ku qoreen iyo ciidamada kale ciidamada lugta waxyaalahaas oo dhan bay marka adiga engineer gantaalada hago yaa lagu qoray waxaa lagu qoray engineer gantaalaha hagidooda yani waxaa qalab cajiib oo aad iyo aad mucaqad u ah oo diyaaradda gantaal intaad ku rido diyaaraddaad waxaad ku hagaysaa adoo raadaarada adeegsanaya si ugu dhaco qalabkaas baa maaragtay qalabka Soomaaliya ma haysatay mise markaas ma loo soo wadaayo Soomaaliya way haysatay warkayda way haysatay way siiyeen weliba way noo hagar baxeenoo kadib marsar baan ku dhamaysan doonaa maxaa yeelay Soomaalida ruushka waa islaadeen kumaana dhamaysan ruushka adinkoo ku jiray ruushka iyo isku dhaceen dagaalka Itoobiya isku dhaceen isku dhaceen 77 waa la gaaray ciidamadii ruushka oo dhan baa la eriyey annagana waa nala soo eriyey markaasaa waxaa naga dul dhacay adoo sanadka saddexaad baa markaa sanadka saddexaad anoo waxaa naga guryihiin aadal idinku yiri maya ayaku runtii inaku nama soo laadine
annaka hadda ciidamadan nahay ma ogtahay صح. ardadii shibilka ahaa way iska joogeen oo cidna ma dhihin annakuna nama dhihin noqda laakiin ciidamaday heshiis laayeen ma xagee kale lagu diyaarin haddaadan gantaal lagu diyaarin xagee lagu adiga un waxay ahayd annaku ciidamadaan hayn ciidamadan aan saraakiil ahaan baana loo qoray صح marka dabcan wadankii waa inaad ku noqotaa oo waxaan xasuustaa keliya nin baa naga haray keliya oo awalba aan ka shakisanayn oo Ethiopia ka yimid oo dadkan Soomaaliga aan ku hadlin ahayn laakiin reer Ethiopia ah baa naga maaragtay أول بعد كشك سنة حكوا دم جاجوس إنه يحس عمله بقى anigu waa qisad dheer kolley laakiin ninkaaba nin wuxuu ahaa af Soomaaliga baan garanay ها لكن سومالي شيء قريب ha farsamadu ku jiray ها kaasaa naga haray صح inteena kale waa soo noqon مصر باليدين وضمر kadib adiga inqilaabkii dhicisoobay ee Ciro baa naga dul dhacay وحير نوغة فاين قلاب كسر iya inqilaabka وحير نوغة تاو